بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دينتين إسلامكو waxyaabaha مثلا cudurrada iyo lagu talinaya inay yani ka yihiin badbaado waxa kamid ah in nadaafada lagu dadaalo oo wajiga la dhaqdo oo gacmaha la iska dhaqo. diinteenu waa dahaaradaas meel weyn ay uga taalaayo. nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam ad-duhuru shadru al-iiman, nadaafadu waa iimaanka barki. yani waxa la gaarsiiyay meeshaas ayada inay saasay tahay. quraankuna markuu weysada ilaahayna amray inaan salaadaha u weyseysano wuxuu yiri waxa saas idin amray ma aha in idinka la idin ku dhibaayo inaad biyahaas iyo wax ku saabsan, walaakin yuriidu lidahirakum, ilaahay wuxuu rabaa inuu idin nadiifiyo oo nadiif aad ahaataan. marka taasna waa muhiim nadaafada in lagu dadaalo. midda kale waxa jira arrimahan kala fogaanshaha iyo dadka si aan cudurka isugu gudbinin in loo baahan yahay in la kala fogaado. taasna waxa u daliila Amr ibn Aas radiyallahu anhu waa ra'yi uu soo jeeday xilli uu daacun aad u weyn u dhacay oo ku yiri buuraha iyo salkooda geedaha meelahaas u kala carro dadka la kala fogeeyo. sidii markii la yeelayna cudurkii waa laga badbaaday. marka waqtigaas hore ayay dadkeena cabqariyiinta ahaa ku talinayeen waxyaabaha markay dhibaatooyinka dhacaan dadka yani lagu badbaadiyo. diinteenu waxay u soo degteen waxba kamid ah inay nafta ilaaliso, xifdu nafsi ay leeyahay. marka wax kasta oo nafta ilaalinaya caafimaadkeeda ay ku jiro diinteenu inay la qaato ayayna amraysaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa asna waxa ka sugnaatay nin inuu u yimid oo hashiisii asoo aan soo xirin ama soo dabrin inuu masaajidka banaanka uu uga yimid. markuu weydiiyay nabiguna uu yiri banaankan uga yimid oo ilaahay baan soo tala saartay. nabigu uu ku yiri iqal naaqataka wa tawakkal ala allah, hashaadana soo dabro ilaahayna tala saaro. marka tala saarashada ilaahayna way jirtaa. asbaabtii arintaas xaqiijin lahaydna waa la iska rabaa oo ilaahay asbaabo ayaa uu ku xaqiijiyaa waxyaabaha dadka ay u baahan yihiin. asxaabta dayno fiirino iyo qadarta sida yani ay ayagoo aaminsan hadana asbaabtu la imaan jireen. xilligii sayyidina Umar radiyallahu anhu amiir al-mu'miniin ku ahaa markuu Shaam daacun uu ka dhacay ayaa ninkii muslimiinta markaa hogaanka u ahaa oo Shaam joogay Abu Ubayd Aamir bin Jarrah yaa wuxuu ku yiri meesha yani ka fogow oo ka soo carara dhinac uga baxa. markaas wuxuu ku yiri qadarta ilaahay miyaan ka baxsanaynaa. markaas Sayyid Umar wuxuu yiri hadii qof kale arintaas uu dhihi lahaa waan garaaci lahaa, laakiin adigu maadaama nin oday aad tahay nafiru min qadari ilaahi ila qadari ilaahi, qadarta ilaahay baan ka cararaynaa, qadarta ilaahay ayaan u cararaynaa. marka asbaabta in la yimaado waa diin. sidaas ay marka ummadda waxaan ugu baaqaynaa inay u hoggaansamaan talooyinka ay soo jeedinayaan howlwadeenada caafimaadka oo ka shaqeynaya dadku sida ay u badbaadi lahaayeen. ilaahay ayaa badbaadahaaye ilaahayna la tala saarto lana baryo asbaabtii lagu badbaadi lahaana la yimaado. sidaas ayaa loo baahan yahay. hada wabillahi tawfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.